وسيدا أدو قوان قادتو نرشو وسيدا أد أهداف وصميستو قول سيدا أدو صميستو هذا تسربتو إن التيفي اسكا داوتو موبيل اسكا داوتو اسكا عدتين وقت بدل سياحتين وبدا اسكا داوتين نرش راد وحكا نقطو وطريون يسايل المتوسية بالبعض وكوان الريا كجرا لأن النول بمتين بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad walaalaha qalbiga walaalaha qaaliga walaalihii hore noola joogay iyo dhammaan walaalaha cusub ee gadaal nooga soo biiraya waxaan idin leeyahay soo dhawaad gacmo furan qalbi furan channelka subscribe noo dheh like noo saar videoga sheerta commentiga wanaagsan waa xaqiina marka horeentana aan is xasuusino inaan ku wada salino xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam. walaalaha qaaliga waa morning routine-kayga iyo subaxdeedii waxaan qabto soo dhawaada insha Allah meeshaas quraac karisa ka soo bilaabay maanta canjeero ma duweynin sheekarisna ma idin tuseynin dalac bilaashkaas ka bilaabatay yaa muddo zaman dheer ayaa waxay ugu dambeysay yaanyada inaan soo fiiqo maasha Allah tabarakallah. yaanyada waxay ahayd yaanyo bislaatay jilcan waxaan ku dhahay waa iska soo fiiq qolofkeed ma fahamtay miskiinta waxaan dhahay tacbaan waa qolofka fiiq waa soo fiiqay waxaan ku dhahay maasha Allah tabarakallah waxay ahayd bahal dhagta ka dhadhaamaysay maasha Allah gacan fadhisan way karsiso maaha amaanta yar aan ku dhex tuurtay soo dhawaada ilaaha noo barakeey inta haysanin Allah siiyo cimri caafimaad barakada cibaado suuban irsaaqad waasac dhamaanteen ilaahana siiyo. yaanyadu waa xawaaye oo arkaysan basasha soo dalacday yaanyada ku soo daray waa soo jijibiyay raqigaas yarkan qasay kadibna waa ku soo daray dhicaankiisa waxaan ku dhahay teenteen ahayd tananaada ka hoo maasha Allah tabarakallah. soo dhawaada seetihiin fiicantihiin xaaladihiina axwaalihiina jawiyadiina meelaha ay kala maraan soo sheega meeshaasna kabsar iyo toon yar ku soo garaacanaya waxaan ku dhahay maasha Allah tabarakallah la soo dhawaado walaalaha qaaliga aad iyo aad u mahadsantihiin. waa routine-kayga maanta waxaan qabtay qayb kamid ah ayaan jeclaystay inaan idin la soo wadaago adinkan waxaan rajeynayaa inay idin xiiso geliso oo ka heshiin like-tana aan ka dareemo hadduu ilaah yiraahdo kadibna way ka soo degtay maasha Allah tabarakallah bilcaafiya calayna wa calaykum. ilaahay intii cunta ha u barakeeyo inta haysanin Allah si anagana Allah noo siyaado Allah noo barakeeyo walaalaha qaaliga ah waa soo kala guraaya waxa waaye caruurta soo siinaya kadib waxaan gali doonaa insha Allah waa nadaafad hadduu ilaahay yiraahdo nala socda videoga wuu dheer yahay zaadna ma dheer laakiin insha Allah gadaal ayuu hooshiisa u badan tahay insha Allah. waxa waaye rooti abowgeyga adeeg ahayna ma aha midkii jilcanayo casirkii la keeni jirina ma roostigan warshada la dhahaa wuuna jilcaya maasha Allah tabarakallah. waaye waxa waaye shaahooda oo soo shubay insha Allah meesha ku raacanayaan walaalayaal warkiina keena videogan biliis codsi waaye qurxiya like ta saara commentiga wax iska soo qorqoraya waxa waaye hooy kartilaata hooy fiicanaata hooy wanaagsanaata maasha Allah guuleyso iska soo qorqor insha Allah commentiga lacag la'aan waa fahanteen dad meeshaan waa idin duubay waxa dhahay wada quraacda moogta waab faraha laga dhowrnooyaa ka waran Allah bini aadan kaamirada soo nacab yahay yaa meeshaasna waa kaasa meesha lagu soo quraacday bahalkaasna idankaasna meeshaas lagama qaado inta badan luubaan ayaa lagu shidaa ma fahanteen maxaa waaye markii oo quraacdi la soo cunay maxaa waaye miiska lagu soo quraacdana waa soo hagaajiyay jikada si ahaydna waa aragteen ma xaaladeeda waa idin kugu qabtay kaamirada ayadana mafti iyo maliifta ka soo gadinaya hadduu ilaahay yiraahdo nuurkeeda la kicinayaa biidni raxmaan. soo dhawaada gabdho adinkana kaca hala shaqeysta fadhiga ha laga kaco yaa abaay soo dhawo waan ku leeyahay shaqeysta fadhiga ha laga wada kaca dhamaanteena insha Allah. ilaahay howsha noo fududeeyo caafimaadka iyo xooga iyo nimcadu ilaahay nasiiyo Allah noo siyaadiyo caafimaad khayr qabana ilaahay na siiyo insha Allah. wax yar oo joojoocan ka cabanayno ilaahay naga caafiyo walaalayaal jikadii waxaan ku dhahay ashhadu hadii la ilaaha lagu dareynaa ku dhahay maasha Allah saasa nal iyo rug uga soo saaray ma fahantay alxamdulillah. waxa waaye hool waxay rabtaa un gacanta koowaad in loo qaado intaan gacanta loo qaadan bay tahay wax culays kula tahay intay niyada kaaga jirto maaragtay ay kula culustahay ma fahantay gabrey fadhi ka kac fag dheh gacanta ku saar insha Allah weelash ka bilow. waxa waaye jikada meel walba soo hagaaji jikada waa ka soo baxnay sheekadeeda meeshaan dhardho waa ma fahantay maalintan dharaa la dhaqaaya dhar oo igu aruure yaa weli inay lama sheegin inay soo gaareen dharka go'ay sariirta ilmaha dharkayga saandan inay isku soo gaareen ma fahantay mar dhow marka maanta waxa waaye hoosheeda ku qaadan fahantay faraha jujucsan oo qaqacada maqashiya waxaan ku dhahay caagadaasna waa ka inta siro gororka ku jirto ma laga neefinayo ku dhahay waa laga gororina ma looga tagayo
kadibna maasha Allah shaamba kale ii taala soo qaadan doona markay iga dhamaato walaalayaal soo dhawaada insha Allah fiidiyowga ilaa dhamaad sii daawada ha ka cararin ha ka caajisina like tana saara insha Allah maanta heeso waxay noqdeen shay intishaar waxay noqdeen shay lagu faantamo waxay noqdeen waxyaabo dadka lagu soo dhaweeyo ilaa heer lagu magacaabay inay yihiin hanuunin ayaa lagu tilmaamay qur'aankii wax hanuunin lahaa dib u dhac ayaa loo arkay maanta wallaahi fitna ka weyn ma jirto heesihii shayaadiinnimada gabdhihii zunaada ahaa kuwii xaqa alla diiday ay ku socdeenna waxaa loo arkay waxyaabo hanuunin ah waxaad maqlaysaa hoballadii hanuuninta waxay hanuuninayaan maxay yihiin dadkay waxay ku hanuuninayaan naarta waxaa imaan doona buu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dad noocaas oo kala ah oo xumaanta dadka ugu waca oo khayrka ilaahay diida ninka la yiraahdo Xudayf ibn Yamaan wuxuu yiri kaana naasu yasaluuna rasuulallahi dadku waxay ahaayeen kuwa rasuulka canil khayri khayrka weydiista wa kuntu as'aluhu canil sharri anigu sharta weydiin jiray buu yiri Xudayfa sababtu waxay tahay makhaafata an yudrikani anoo ka cabsanaya haleelkeeda markaasaan maalin iri ya rasuulallah inna kunna fi jaahiliya anagu jaahli ayaan ku sugnayn iyo jaahilnimo iyo فجاءنا الله بهذا الخير إلهي با خير كان نوكيني أحاديث كان إيا الدين كان إيا قرآن كان أيا إله نوكيني فهل بعد هذا الخير من شر خير كان كقضاء شر ما يهي رسولك إلهي وقال نعم ها أيو الله النبي خير كان شر با كدن بين دونتا فتن أيا كدن بين دونتا قلت وهل بعد ذلك شر من خير ويهي شرطة إيمان دونتا قضاء شيء خير ما يهي قال نعم ها أيو الله خير أيا وفيه دخن لكن دخن أيا نحديث هذا واقيق أما واقع وحان إربو يري وما دخنه دخن كيسو محاواي رسولك وحو يري قوم يهدون بغير هدي وقوم كهنونا وحان هنون أهين تعرف منهم وتنكر ما يقوات أقون سنيسا مرك قبل كمد مرنا وات إنكريسا وحان إربو يري حذيف بن يمان فهل بعد ذلك الخير من شر خير كاس كقضاء شرك لما يهي رسولك إلهي أيو وقعبسنا يا حذيفة وحو كعبسنا شرط إيمانيسا وحو كعبسنا سوء الخاتمة إنو كردنتو وحو كعبسنا إن إلهي أكتيسا وناك وايو وحو كعبسنا إن إلهي أكتيسو كفضيحوب وحو كعبسنا إن جنة أوهلي وايو وحو كعبسنا إنو نبي لكل موايو وحو كعبسنا درك آخر إن لقى عبسين وايو مركاسو مرو البشرة ويدينا النبي فهل بعد ذلك الخير من شر خير كاك قضاء شر ميهي قال نعم هابو راي نبي دعاة على أبواب جهنم دعاة أيا إيماني سوء الباب جهنم وضطوبا من أجابهم إليها قذفوه فيها خف كستأو أجيب ويكطوران الباب كي جهنم الباب كي ذي كرذايا ما انت هنون انتي هسهي النقذين هنون انتي قمرة أول لعبين النقذين هنون انتي قبيلك وحيد دكسدين النقذين والدعاة النوع عسى إسك إلالية الباب كجهنم أي تاقيهين مع ذلك قفكي أجيب قفكي راع جهنم الباب هذا أي كرذايا حذيفة وحوير قلت يا رسول الله صفهم لنا نوت المنبق في أن أغانا ضدك وأن إسقى إلالي رسولك وحوراهم من جلدتنا مقاركينا oo kale ayay leeyihiin way takalamuuna bialsinatina carabkeena iyo luqooyinkeena ay ku hadlayaan xudaafa wuxuu yiri dadka la iskama ilaalin kare fama ta'muruni in adrakani dhalik maxaad ifari lahayd rasuulka ilaahayow haddii alla igaarsiiyo oo aan soo haleelo xaaladda noocaas ah waa fitan cajiib badan dad ducaad ah oo ku wacaaya oo albaabka jahannama taagan oo haddaad ajiibtana kugu ridaaya adigoo kale ah maqaarkaagoo kale leh luqadaadoo kale ku hadlaaya waa dad aan layska ilaalin karine rasuulka الله فما تأمرني محادي أمريسا إن أدركني ذلك واحد لازميسا وتكون حجريسا جماعة المسلمين تأي إمام كوذا meelaha fisqiga fitantaha aadin riwaayadaha ay kun shirtooyinka aadin wargabdhaha muqanniyaadka meelaha ay ku heesaan ee zunaadaha tagin mar walba jamaacada muslimiinta ku dhex jir waa in rabbi laga baryaa subxaanahu wa tacaala inuu diintiisa iyo khayrkiisa iyo wanaagiisa uu kugu sugo maanta heeso waxay noqdeen shay intishaar waxay noqdeen shay lagu faantamo waxay noqdeen waxyaabo dadka lagu soo dhaweeyo ilaa heer lagu magacaabay inay yihiin hanuunin ayaa lagu tilmaamay qur'aankii wax hanuunin lahaa dib u dhac ayaa loo arkay maanta wallaahi fitna ka weyn ma jirto heesihii shayaadiinnimada gabdhihii zunaada ahaa kuwii xaqa alla diiday ay ku socdeenna waxaa loo arkay waxyaabo hanuunin ah waxaad maqlaysaa hoballadii hanuuninta waxay hanuuninayaan maxay yihiin dadkay waxay ku hanuuninayaan naarta waxaa imaan doona buu dhahay
rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad noocaasoo kale ah oo xumaanta dadka ugu waca oo khayrka ilaahay diida ninka la yidhaahda xudayfa ibnu yamaan wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allaahi dadku waxay ahaayeen kuwa rasuulka can ilkhayri khayrka weydiista wa kuntu as'aluhu can ishari anigu sharta weydiin jiray buu yidhi xudayfa sababtu waxay tahay makhaafata an yudrikanii anoo ka cabsanaya haleelkeeda markaasaan maalin idhi yaa rasuula allah innaa kunnaa fii jaahiliya annagu jaahli ayaan ku sugnayn iyo jaahilnimo iyo shar fajaa'ana allaahu bihada alkhayri ilaahay baa khayrkaan noo keenay axaadiistan iyo diinkan iyo qur'aankan ayaa ilaah noo keenay fahal bacda hada alkhayri min shar khayrkaan ka gadaal shar ma yahay rasuulka ilaahayow qaala nacam haa ayuu dhahay nebiga khayrkaan shar baa ka dambayn doonta fitan ayaa ka dambayn doonta qultu wahal bacda dalika sharu min khayr waayahee shartaa imaan doonta gadaasheeda khayr ma yahay qaala nacam haa ayuu dhahay khayr ayaa ah wa fiihi dakhanun laakiin dakhan ayaa dhexdiisa ahaaday waa qiiq ama waa qaac waxaan idhi buu yidhi wamaa dakhanuhu dakhankiisu maxaa waaye rasuulku wuxuu yidhi qowmun yahduuna bikayri hadyin waa qoom ku hanuunaya waxaan hanuun ahayn tacrifu minhum wa tunkiru ma iyagu waad aqoonsanaysa mararka gobol ka mid ah marna waad inkiraysaa waxaan idhi buu yidhi xudayfa ibnu yamaani fahal bacda dalika alkhayru min shar khayrkaas ka gadaal shar kale ma yahay rasuulka ilaahayow aad ayuu uga cabsanayaa xudayfa wuxuu ka cabsanaa sharta imaanaysa wuxuu ka cabsanaa suu'ulkhaatima inuu ku dhinto wuxuu ka cabsanaa in ilaahay agtiisa uu wanaag ka waayo wuxuu ka cabsanaa in ilaahay agtiisuu ku fadeexoobo wuxuu ka cabsanaa in jannada uu heli waayo wuxuu ka cabsanaa inuu nebiga la kulmi waayo wuxuu ka cabsanaa darka aakhira in laga cabsiin waayo markaasuu mar walba sharta weydiinaa nebiga fahal bacda dalika alkhayri min shar khayrkaa ka gadaal shar ma yahay qaala nacam haa buu dhahay nebiga ducaatun calaa abwaabi jahannama ducaad ayaa imaanaysoo albaabka jahannama wada dhooban man ajaabahum ilayha qadafuuhu fiiha qof kasta oo ajiiba way ku tuuraan albaabkii jahannama albaabkeeday ku ridayaan maanta hanuunintii walaalahayga qaaliga rutiinkayga maanta intaasuu ku egyahay dharka waa soo dhaqday waa soo warwaray alxamdulilaah ilaahay mahad iskale caafimaadkana siiyey taankis ayaa idin leeyahay idinkana allah idin sharfo like-tan noo saar subscribe-kana noo saar salaamu calaykum